habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin Yaman ayay ku xaniban yihiin iyagoo xaalad xun ku jira waa kumayaal Itoobiyaan iyo Soomaali isugu jiro muhaajiriin ah oo fayraska corona dartii halka ugu xaniban warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kala caaw waxa kamid ah dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ooga qaasa u magacawday kiisaska wariyaasha lagu dilay Soomaaliya iyo tacadiyada kale ee loo geysto waxaynu eegi doonaa waxa tallaabadani ay ka tari karto dhibaatada haysata wariyaasha Soomaaliya maxay salka ku hayaan tabashooyinka imtixaanada fasalka afraad ee dugsiga sare ee sanadkan doodda Khamiista ee caawa ayaynu ku eegi doonaa kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka kumayaal qof oo muhaajiriin isugu jirta Itoobiyaan iyo Soomaali ayaa ku go'doonsan Yaman sabab la xiriirta xayiraadda socdaalka ee fayraska corona dartii waxayna rajaynayaan inay Sacuudigu gaaraan si ay shaqooyin halkaasi ugu helaan balse taasi beddelkeeda hadda xaalad adag ay ku jiraan mana awoodaan in ay dalkooda ku laabtaan Bushra Nuur ayaa ka waramaysa kuwani waa muhaajiriin ka yimid dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya waxay ku xayiran yihiin Yaman dal uu dagaal sokeeye ka socday ku dhawaad 6 sano badankood waxay u socdaan Sacuudi Carabiya si ay shaqo uga helaan يضربوا حق مطعم والله من maqaayadaha waana lagu garaacaa markii hore caadi ayay iska ahayd balse hadda waa ayna garaacaan waxay nagu yiraahdaan waxaad noo keenteen fayraska corona ee naga laabta ma rabo inaan sii joogo cadan tira lagu qiyaasay 14,500 oo muhaajiriin ah ayaa Yaman ku xayiran waxay ku nool yihiin dhismooyin la dayacay oo aanan amaan ahayn المهاجرون أيضا يتعرضون للتمييز والإقصاء من dadkan muhaajiriinta ah waxay wajahayaan cunsurnimo dadka deegaanka waa laga saaray kuwa badan waxay aaminsan yihiin in ay cudurro keeneen ayna bulshada ku faafinayaan fayraska المجتمعات xayiraadda dhanka socdaalka ee uu sababay COVID-19 ayaa yareeyay dadka soo galaya Yaman sidoo kalena adkeeyay in muhaajiriinta ay dib ugu laabtaan dalalkooda المهاجرون عبر بوابات الدخول يعانون خطر muhaajiriintan dhib ayay ku soo galaan waxaana jirta khatar ah in ay afduubaan kuwa sida sharci darrada ah u kala gudbiya dadka sidoo kalena ay ciqaabaan lacag madax furasho ah ayay qoysaskooda jooga Itoobiya ka dalbadaan si ay u fasaxaan لفديتهم وإطلاق سراحهم muhaajiriinta qaar xitaa ma heli karaan biyo nadiif ah iyo adeeg caafimaad waxayna u nool yihiin sida Yemeniyiinta noloshooda ay maalin walba si adkaanayso dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ooga qaasa u magacawday kiisaska dilalka wariyaasha Soomaaliya iyadoo lagu wado in baaritaan uu ku sameeyo dhibaatooyinka baasan ee ka dhanka ah saxafiyiinta ka howlgala dalka si gacanta loogu soo dhigo kuwa dilalka iyo weerarada la beegsada wariyaasha magacaabistan waxay imaanaysaa kadib markii ururka suxufiyiinta qaranka ay ka dalbadeen maxkamadda gobolka Banaadir bishii May ee sanadkan in ay wax ka qabtaan dambiyada loo geysto saxafiyiinta sidoo kale ururku wuxuu sheegay in baaritaanada weerarada guracan ee lagu qaado saxaafadda ay u baahan yihiin khibrad dheeraad ah oo aan mas'uuliyiintu si degdeg ah aysan ugu degdegin una soo afjarin baaritaankooda iyagoo aanan hubsan in dhibaatada ama dilka loo geystay saxafiga ay la xiriirto shaqadiisa sida ay sheegayso hay'adda CPJ ee difaacda suxufiyiinta ilaa iyo 1992 Soomaaliya waxa lagu dilay 69 wariye waxaana la weeraray 360 wariye tan iyo 2010 halka suxufiyiin gaaraysa 250 qof ay dalka isaga carareen ilaa iyo 2007 xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamuud oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in dacwad oogaha u gaarka ah warbaahinta uu baarayo dabagalna ku samaynayo dilalka suxufiyiinta si cadaalada loo horkeeno kuwa abaabulay qorsheeyay isla markaana fuliyay dilalka wariyaasha haddaba magacaabista xeer ilaaliyaha u gaarka ah warbaahinta waxa soo dhaweeyay
hay-adaha xuquuqda suxufiyiinta hadda waxaa qadka si toosa ugu jira xogayaha guud ee ururka nusooj cumar faaruq cusmaan. cumar, soo dhowow in dacwad ooga ama xeer ilaalyahan gaarka loo magacaabo dhibaatada wariyaasha loo geysto maxay soo kordhinaysaa hadda? waa mahadsan tahay cusmaan. horta waxaan taariikhda marna dhicin oo dalkeena aan ka dhicin ama ahaan geeska africa aan ka dhicin waaye. marka ugu horeyso in dalkan oo lagu tilmaamo inay tahay goobta loogu dilka badan yahay wariyaasha loo sameeyo dacwad ooge u gaara oo baara ma aha markii ugu horeysay ee caalamka ka dhacayso. dalal badan bay ka dhacday, laakiin qaaradda africa waa markii ugu horeysay ay ka dhacayso. waxa annaga urur ahaan ama nusuj ahaan aan xoogga u saarnay waxa ay tahay waxa waaye horto waxaa loo arkayay dadka dilalka geysanaya ama abaabulaya dilalka wariyaasha inay yihiin kuwo lama taabtaan ah oo aan la taaban karaynin oo uusan sharcigu qaban karaynin. marka waxaan dooranay inaan sharciga horgeyno oo aan cadaaladda aan u raadino suxufiyiintii walaalaheena ahay ayagoo shaqadooda ku jiro la dilay. ujeedada kaleeto aan ka lahayn waxa ay tahay dabcan waad garan kartaa Soomaaliya caalamka ayay qayb ka tahay. marka ugu horeyso ee caalamka cadaalad ka raadinayso maxkamado baa jiro sida maxkamadda midowga Afrika ee xuquuqul insaanka oo kaleeto. marka aad raadinayso waxa ugu horeeyo oo lagu leeyahay waxa ay tahay ma adeegsateen ma isticmaasheen nidaamka cadaaladda dalkiina guulayso ama halaga guulaysto kadib markaas ayuu ku furan tahay. marka taasna waxay noo muujinaysaa inay maanta fursad tahay. hadda marka la raadinayo cusmaan oo cadaaladda 4 tilaabo baa la marayaa. hadda waxaan marnay ilaa 2 tilaabo oo aad u fiican. waan gartay cumar. marka si dacwad oogahan uu u guto shaqadiisa waxaad sheegteen in loo baahan yahay khibrad oo aan la degdegin. marka muxuu u baahan yahay inuu shaqadiisa sameeyo? dabcan horta waxaa loo baahan yahay inay marka ugu horeyso baaritaanku inay noqdo baaritaan hufan oo lagu kalsoonaan karo oo xaqiiqooyinka dhan ee jira yani in la soo faago. taas ayaa muhiima. halkaas marka ay marayso caalamka hadda dhammaan waxyaabaha aan arkayna waxa ay tahay aad baa loo soo dhaweeyey oo in la taageero xeer ilaalinta Soomaaliya laga taageero iyo cadaaladaba laga taageero sida dambiyadan gaarka ah ee ka dhanka ah suxufiyiinta loo baari lahay qaarkood laba hor ayay dhaceen. waata cumar dawladda waxa lagu dhaliilayay gaar ahaan sharcigii dhawaan soo baxayba inay cadaadinayso suxufiyiinta. marka dawlad iyadaba taa lagu eedeynayo sidee marka sidan shaqadan kale ku qaban kartaa? anagu waxaan rabnaa inaan horta kala qaadnaan u baahannahay xukuumadda ama executive-ka waxa la dhaho iyo cadaaladda. annaga waxa aan aadnay oo xukunka aan ka helnay oo soo saaray magacaabay xeer ilaalyaha gooniga waa cadaaladda waa iyo xeer ilaalyaha guud waaye. marka dadku waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay isku qaldaayaan judiciary-ga iyo executive-ka inay isku qaldaayaan. annaga waxaan aadnay waxa waaye waa cadaaladda waaye. nidaamka cadaaladdaana rabnaa inaan daba soconno si loo xaqiijiyo oo loo helo cadaalad dadkii dhibanayaasha ahaa ee walaalaheena la dilay iyo ehladooduba ay u helaan. laakiin waxa maanta dhaca waxay tusaale u tahay cumar aan ka dhaxgale sidee cadaalad lagu helaa haddii guddigii ama howlihii qoladii fulin lahaydba ay dhinacaas cadaadis looga eedeynayo maxay macno samaynaysaa cadaalad kastoo la sheego? dabcan horta waxa waaye mar allaala markii ay jiraan xadgudub uu dhaco waxaa loo baahan yahay in nidaamka sida uu ku dhigaayo inaad qaadatid. qofka aad xadgudubka ku eedeynaysid waxaad ku eedeynaysaa in shuruucdii iyo nidaamkii dalka yaalay inuu jabinayo oo ku tumanayo. laakiin annagu dacwado badan baan soo galay nusuj ahaan 9 sano ayaan dagaal ku soo jirnay ilaa heer caalami ay gaartay. laakiin waxa aan kaga guulaysanay dawladda dacwadda waxay ahayd mar walba dhinaca sharciga ayaan ka maraynay. sharcigaas aan ka maraynay waxay noo sahashay 9kii sano aan soo dagaalameynay ugu dambeyn inaan kaga guulaysano dacwadda. marka waa waxaan hore usoo tijaabinin waaye haddii maanta dacwadda aan ka furnay ay hadda socoto yani ay miro dhali weyso maxkamadda Afrika meelaha caalamiga inaan isla tagno ayaa noo bannaan oo hadhowti ay noo furnaan doonto. waayo su-aasha mar walba nagu soo noqonaysa waxa ay tahay dalkiina nidaamka cadaaladda dalkiina ka jira ma soo isticmaasheen noocuu rab ha ahaado cid walba dareenkay doonto ka haysato. laakiin nidaamka dalka ka jiro cadaaladda iyo dastuurkeena waxa uu dhigaayo iyo shuruucda dalka waxay dhigayso inaan isticmaalno waa waddo annaga noo furan muwaadiniin. aad baad u mahadsan tahay cumar faaruq cusmaan guddoomiyaha ururka nusooj ee suxufiyiinta Soomaaliya. waa mahadsan tahay cumar. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena maanta.
dab kale oo weyn ayaa ka kacay dekedda Beirut taasi oo bil ka hor uu ka dhacay qaraxii weynaa waxaa muuqaalo laga dubay olol iyo qiiq ka baxaya dekedda balse degdeg uma cadda waxa sababay dabka waxaase la qiyaasayaa inuu dabka ka bilowday meel baqaar ah Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka isir kala sooc kadib markii Washington ay sheegtay in ay kala laabatay viisaha kun arday oo Shiineys iyo cilmi baarayaal ah Mareykanku waxa ay sheegeen in kuwa viisaha haysta ay la xiriirna la leeyihiin militariga Shiinaha waxayna doonayaan in ay ka hortagaan xogta xasaasiga ah waa tallaabadii ugu dambeysay sanadkan cunaqabataynta Mareykanka uu saarayo Shiinaha Maria Kolniskova oo ka mid ah mucaaradka ugu weyn Belarus ayaa dalbatay dambi baaris ka dhan ah KGB iyo booliska kadib afduubkeedii iyo isku daygeedii xoogga ahaa ee lagu masaafurin rabay horaantii toddobaadkan Mr Kolniskova ayaa jeexday baasaboorkeedii si ilaalada xadka Ukraine u diidaan viisaha dalku galka hadda way xiran tahay waxayna ku baaqday in dawladda xukunka laga rido 5 gabdhood oo ah kuwa ay iska dhaleen dad cadaan ah iyo dad madow ah dalka Belgium oo xoog looga qaatay qoysaskoodii isla markaana loo geystay xadgudubyo galmo ayaa maxkamad ay u qaadeen Belgiumka dumarkan oo hadda da'doodu ay tahay 70 jir ayaa waxa laga soo qaaday kiniisad ku taalay Congo waxaana laga tagay markii cadaankii Belgiumka ahaa ay ka qaxeen dagaalkii ka dambeeyay xilligii xorriyaddii 1960 mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu weynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter Instagram wali waxay noo soo socda maxay salka ku hayaan tabashada imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare doodda khamiis ayaynu ku eegi doonaa weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn Yaman ayay ku xaniban yihiin iyaga oo xaalad xun ku jira kumayaal Ethiopian iyo Soomaali muhaajiriin ah ayaa fayraska corona dartii halka ugu xayiran dawladda Soomaaliya ayaa dacwad ooga qaas ah u magacawday kiisaska wariyaasha lagu dilay Soomaaliya iyo tacadiyada kale ee loo geysto waxaynu eegnay waxa ay tallaabadani ka tari karto dhibaatada haysata wariyaasha Soomaaliyeed tabasho baahsan ayaa ka dhalatay imtixaanada shahaadada lagu qaato Soomaaliya ee sanadkan waalidiin iyo macallimiin ayaa sheegay in baaris waafi ah loo baahan yahay haddii aynu eegno guud ahaan imtixaanada fasalka 12aad ee dugsiga sare waxa sanadkan galay arday ku dhow 34,000 guud ahaan dalka oo dhan in ka badan 25% ayaa imtixaanka ku dhacay gobolada ay natiijada sida weyn u saameysay waxa kamid ah gobolka Banaadir halkaasi oo ku dhawaad 8,000 oo arday ay imtixaanka sanadkan ku dhaceen celceliska guud ee tirada ardayda imtixaanka baastay sanadkan gobolka Banaadir waxa ay ka yar tahay 64% waa maxay sababta dooda caawa aynu ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdisalaan Muuse Shaaciye oo ah agaasimaha dugsiyada Nilayn magaalada Muqdisho ayuuna qadka kaga jira Cabdi Shakuur Tarax ayaan isna filaynaa inuu nagala soo biiro isla markaana daraasad ayuu ku sameeyay Tarax waxbarashada Soomaaliya waxaan xusud mudan in aan ku casuunay barnaamijkan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya laakiin way ka cudur daarteen soo dhawow Cabdisalaan marka hore tabashaad samayseen marka maxay tahay tabashadiina oo aad isleedihiin way qaldameen
aada umahadsantaha Ismaan Cabdi Xasan walaalo waa run waaye maamulayaasha gobolka Banaadir aad waxay uga cawdeen natiijadii tabneed ee ka soo baxday imtixaankii la qaaday sanad dugsiyeedkii hadda soo dhamaaday ee 2019 runtii natiijada waxay ahayd natiijo filan waa ku naqatay maamulada iskuulada gobolka Banaadir sababo badan oo aan runtii rabno inaan la wadaagno wasaaradda laftigeeda iyo bulshadana waa jireen Usmaan haddii aan ku taataabto waxyaabaha ugu weyn natiijo xumadan ay salka ku haydo waxaa kamid ah manhajkii oo aan dhamaystirmin sabab la xiriira xanuunkii COVID-19 sida aad la socoto sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay waxaa hareeyay xanuunadan COVID-19ka iskuulka oo socda ayay dawladdu ku dhawaaqday in la joojiyo waxbarashada kadib markii xanuunkii baahsanaa uu dalka soo galay ama awaamirta waa qaadanay sanad dugsiyeedka intiisii badnayd iyadoo runtii la soo maray qayb weyn oo muhiim ah oo gabagabada iyo muraajacada ahaydna ay noo dhiman tahay 18 bishii March ee sanadkii 2020 marka manhajkaas oo dhamaystirmin iyo imtixaanka oo ahaa mid runtii ka yimid fasallo ardaydu hore u soo qaateen sida fasalkii 12aad ilaa fasalkii 9aad inta u dhaxayday taasoon hore loogu ballansanayn loogana baran imtixaanadii ay dawladda hore u qaadi jirtay waan gartay Cabdisalaan haddii ay intaad sheegtay ay jiraan oo aan waxaasoo dhan aad og tihiin maxaad imtixaankan u gasheen maxaad marka hore dawladda ula fariisan weyseen wixii dhibaato jira aad u sheegi weyseen haddaadan diyaar u ahayn inaad gashaan runtii annaga inta badan awaamirta wasaaraddu waa ina soo gaarayeen siyaabo kala duwan baa nagu soo gaaraane sida aad la socoto Usmaanow dalka muddooyinkii burburkaba waxaa waxbarashada gacanta ku hayay dad is abaabulay oo u badan daladaha waxbarashada ahliga ah marka runtii daladahaas awal xiriirka iyo howlaha wadi jiray sida message-ku nagu soo gaaray annaga maamulayaashuna wasaaraduna ay iclaamka ka sheegtay waxay ballan qaadeen in imtixaanka lagu qaadi doono wixii ka horeeyay intii aan iskuulada la xirin xanuunkan COVID-19 aan loo xirin marka imtixaankii la qaaday runtii wuxuu nagu ahaa imtixaan aad iyo aad bulshada reer Muqdisho iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba ay qaadan weyday waana markii ugu horeeyay tiradii ugu badnayd ee ardayda ay imtixaanka ay ku dhacaan runtii 8550 arday oo kamid ah ardadii 33400 jajabka ahayd ayaa imtixaanka ku dhacday runtii waxay ahayd aad iyo aad arrin nooga fajicisay imtixaanka runtii sidii loo dejiyay laftigeeda tabashooyin badan ayaan ka qabnay imtixaanka ardadu waxay noo sheegeen markay imtixaan ka soo baxayeen maalmihii imtixaanka uu socday 18 19 20 ilaa 23 waxay noo sheegayeen in waqtiga iyo imtixaamaadku ay kala duwan yihiin nuqlo kamid ah imtixaanadoon hayno runtii waxay u badan yihiin imtixaamno oo yani u badan aan runtii aan u diyaarsanayn oo ardayga waqtiga labada saac ee la siiyey iyo imtixaanka la soo dejiyey oo u badnaa imtixaan waa mahadsantahay Cabdisalaan waa mahadsantahay waa kugu soo laabanaya Tarax ayaa markaan qadka ku jira Taraxow imtixaankii waad la socotay waxbarashada Soomaaliyana daraasadaad ku samaysaa marka xagee wax ka qaldameen aad isleedahay markaa fiiriso siday wax u dhaceen sideedaba horta imtixaanaadka marka la fiiriyo hay'adda u shaqada leh doorkeedu waxa uu yahay maaragtay dejinta maamulidda iyo horumarinta imtixaanaadka sida hadda wax u socdaanna waxaan u maleynayaa inay inta badan dadku ay ka badbadinayaan la'alligeed markaad fiiriso hadda tirada maaragtay waxa la yidhaahdo matalidda maaragtay saamiga ama proportionate representationka u malayn maayo walaac weyn inay jirto waayo magaalada Muqdisho 25,000 oo qof baa imtixaan ka qayb galay 8,000 way dhaceen proportionally marka waxay noqdeen 32% 32% marka anigu waxaan isleeyahay hadday wax dhaceen waxa weeye wax la xiriira processkii imtixaanada lagu saxayay waana runtii in maaragtay wasaaradda waxbarashada arrintan ay bacdama imtixaanaadkii xafiiska imtixaanaadku iyada hoos yimaado inay mas'uuliyaddaas qaadato oo ay dib wax u saxdo haddii ay jiraan qaladaad dhacay inta lagu jira processka ama marking hadday noqoto ama saxidda imtixaanaadka ha noqotee waxaa hubaala in loo baahan yahay in maaragtay dhacdadani dib loo fiiriyo oo markaasi guddi oo wasaaradduna ay qayb ka tahay iskuullada private saad la socoto Soomaaliya majority ama inta badan iskuulladu waxaa weeye waa iskuulo private ah marka in xiriirka maaragtay wasaaradda iyo iskuulladaasi maaragtay aad loo hagaajiyo isla mar ahaantana maaragtay dib loo fiiriyo waayo saad la socoto wasiirkan waxaan u maleynayaa hadda ka hor inuu yidhi imtixaanka saxideeda iyo maaragtay hawsheeda inta badan waxa kaliya u saaran tahay wasaaradda ma aha sababtoo tahay ardaygii iskuulba wax ku dhigtaa iskuulkaasi wixii haddaysan waxbarashadii tayadii ardaygu u helaya haddaysan joogto noqonin marka dabcan markaa saameyn bay ku yeelanaysaa maaragtay natiijada waxbarashada
waan gartay cabdishakuur tarax waa mahadsantahay cabdisalaan ku laabanaya cabdisalaan ardaydii hadda qaarkood niyadoodii ma fiicna ilaan arday imtixaanka ku dhacay oo wax filayay waa hubaal in ay jirayso meeshaas niyad jab maxaad idinka iskuullada hadda ku tala gasheen in horey loo socdood qabataan waa run waaye saddexdii arday ee imtixaanka gashay ee muqdisho ardaydii ku gashay ah mid ka mid a ayaa imtixaanka ku dhacay sida hadda noo muuqata marka walaalkayna wuxuu yidhi runtii tiradu proportional wax weyn kuma kala duwana imtixaanka waxaa lasoo qaadayay 6 sano ugu dambeeyay sanadkan ku jiro ardadii ugu badnayd ee jamhuuriyadda ka dhacdana 3500 ilaa 4000 ayay ahayd tirada hadda dhacdana waxa waaye laba jibaar wax ka badan waaye marka waxyaabaha aan runtii ka cabanaynay kamid tahay dawladduna uma aynan diyaarinin ardadaas tirada badan ee hadda qaarkood dhiban walaacsan runtii madaarista ay wax ku baranayeen hor dhooban dawladdu uma aynan diyaarinin ardadaas meel ay wajahaan iyo qaab ay cadaalad ku helaan qaarkood waa ay ka shakisan yihiin waxay leeyihiin maamul ma jirto sidaan sax maahan runtii wasaaraddana waa la xiriirnay waa u sheegnay cabashooyinka waa gaarsiinay anta u dambeeyay bayaana ka soo saar waa mahadsantahay cabdisalaan tarax ayaan ku laabanayaa sida waddankan ka dhacdayba UK dawladdii dib ay uga laabatay natiijadii imtixaanadii covid-kiina dhibaatuu geeyey marka maxay adiga kula tahay marka xaaladan hadda adduunka ku cusub ardaydii imtixaanka ku gashay wallahi walaalow arrintaasi waa arrin aan maaragtay labada waddan Soomaaliya iyo Kenya iyo aan iraahday maaragtay UK lasbarbar dhigi karin laakiin waxa weeye systemka hadda iskuulada ka jira Soomaaliya magaalada Muqdisho ama gobolada dhan ba ha noqotay ma jiraan imtixaano maaragtay joogto ah oo ardayga laga qaadi karo oo maaragtay loogu qiimeyn karo waay sababtoo tahay systemo kala duwan bay iskuuladaas ku dhaqmaan manhajyada kala duwanaan kara waxa kaloo iyagana kala duwanaan kara qaabka maaragtay loo maareyn karo imtixaanada tijaabooyinka waddankana waxaa la yidhahdaa mock exams baa la yidhahdaa laakiin taraxow aan meeshaas kaa dhexgale muwaysan ahayn inay dawladda ka bilowdo manhajka iyo tayada iskoolada halkay imtixaanka ka bilaabi lahayd sida hadda dhacday absolutely waa aad baan kugu taageersanaa arrintaas la'alligeed dhibaatada ama waxaan maaragtay fiyaskooga examination inta badan waxay ka imanayaan haddii aysan jirin tiro maaragtay tayo leh oo macallimiin ah oo imtixaanadii xataa qaarkood maaragtay casharada bixinayaan ku salaynayaan ilmahan inuu imtixaan noocaasi galayo imtixaanada dadkii saxayay aan tababarkii loo baahnaa aysan helin manhajkii oon maaragtay ahayn mid maaragtay waddankoo dhanba si isku dheelitiran loo samaynayo dhibaatooyinkaas dhan waxay keeni karaa in mar walba caqalad noocan oo kale maaragtay ay timaado waana wax u baahan wasaaradda waxbarashada galadaha waxbarashada iyo dhammaan inta ay qusayso maaragtay taamilayda waxbarashada inay arrintani ka wada qayb qaataan waana midda hadda walaalkay uu sheegayay sababtoo taa waxaa weeye wasaaraddu waa inay mas-uul iska saartaa 8,000 ardayda maaragtay ee maanta aan la ogeyn wax bulkooda noqon doono inay maaragtay isku dayda qaabkii maaragtay loogu qancin lahaa gabagabadii aan soo gaarnay cabdisalaan ayaan siinayaa sakano yar halka hadda muxuu yahay cabdisalaan aad doonaysaa inaad qaadaan waa run waaye ismaanow halka aan doonaynaa waxa waaye in dawladdu ay dib u eegis ku samaydo runtii oo aanan la dhihin wixii dhaca waa dhaceen albaabadan ka xiranaynaa inaan waa mahadsantahay arday yaryar oo ubad Soomaaliyeeda waaye in halkaa dawladdu ay gacanta ku qabato runtii guddina loo saaro si loo hubiyo waxyaabaha waa mahadsantahay cabdisalaan naxar adna hal eray maxaa halka yahay tarax waa ka wada aniga tarax raalli ahaw waxaan dhihi lahaa sida hadda walaalku uu sheegay wasaaradda waxbarashadu waa inay mas-uuliyadda qaada imtixaanaadku xafiiska imtixaanaadka qaranka wuxuu qayb ka yahay wasaaradda waxbarashada marka inay ardaydaasi fursad u siisaan imtixaanadii inay dib u galaan iyadoo markaasi guddiga ka madax bannaan wasaaradda ama hadday noqon lahayd maaragtay guddiyada maaragtay galoodaha waxbarashada iyo maaragtay ciddii kale markaas quseynaysa xataa jaamacadahoo kale inay markaa arrintaasi qayb ka qaataan baan soo jeedin lahaa aad baad u mahadsan tahay cabdishakuur tarax ayuu kaasi ahaa iyo cabdisalaan oo isna magaalada muqdisho nooga soo galo maamulaha iskuullada naylayna waa mahadsantihiin tarax iyo cabdisalaan labadiinaba aad baad mahadsantahay xusuusna wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiinna habeen dambe intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo